صعب بدن هالوقتمو صعب بدن هالوقتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتان لوغو باقي بلشي خير يضمو يا أبو صعب بدن هالوقتمو صعب بدن هالوقتمو تجيو كرام وضوي نقم بركمتا وقيو حناقذي يا عيال تكابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaashada aan jecelahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Rayo TV. barnaamijkana waxa idin socodsiiyay isla markaana idin soo diyaariya anigoo ah Abubakar Farxaan Cabdi Rooble Abubakar Abka. qodobada aynu toddobaadkani ku soo qaadan doono barnaamijkeena ciyaarahana waxaa ka mid ah daawadayaal natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen kulamadii ugu dambeeyay ee laga ciyaaray koobka qualifierska ee qaaradda Yurub oo ay wada ciyaareen xulalka qaramada qaaradda Yurub oo idin hayno kulamadii ugu waaweynaa iyo natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen. daawadayaal sidoo kale waxaan idin haynaa xubinteeni sheekooyinka iyo falanqeynaha ku saabsan ciyaartoyga qaaradda Yurub ee ugu caasan dhanka kubadda cagta iyo waliba kooxooda. daawadayaal waxaanu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena ciyaaraha qodobkeenii dhextaalka ahaa ee aynu magac daray xirfadda ciyaartoyga oo aynu toddobaadkiiba mid ka mid ah ciyaartoyga kubadda cagta aynu ku daawano muuqaal ka turjumaya xirfadiisa kubadda cagta. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada si aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo ka xiiso badan. aan ku bilownay daawadayaal waxaa toddobaadkan gudihiisa nasiimo galay isla mar ahaantaana la joojiyay horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. taa bedelkeedana waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka European Qualifierska loo yaqaano oo ay ciyaaraan qaramada qaaradda Yurub. waxaana ay toddobaadkan ahayd mid xiiso badan waxaana dhacay kulamo waaweyn oo markaasi iyagu ka tirsanaa koobkaasi. aan ku bilownay daawadayaal waxaa toddobaadkan gudihiisa fooda istare isla maraantana ciyaar adag dhex martay xulalka qaramada Azerbaijan iyo Croatia waxaana wadankooda lagu ciyaarayay isla maraantana marti loo ahaa xulka qaranka Azerbaijan. ciyaartuna sidii caadada ahayd waxay ku bilaabantay weeraro kala duwan iyo weerar celis ay labada kooxood sameynayaan ama labada xul qaran. hase yeeshee xulka qaranka Croatia ee isagu markaasi martida ahaa waxa uu suurta gashay daqiiqadii 11aad inay gool ka dhaliso xulka qaranka Azerbaijan waxaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka Croatia ciyaartoyga Luka Modric. ciyaartuna ka dhigay 1-0 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Croatia oo iyagu markaasi marti ahaa. ciyaarta qaybtii hore waxay ku dhamaatay 1-0 balse markii la isku soo noqday labada xul qaran waxay bilaabeen weeraro kala duwan oo ay isku qaadayaan. hase badnaatay xulka qaranka Azerbaijan ayaa weerarada badinayay maadaama lagu lahaa gool iyaguna ay doonayeen inay iska soo badaan. waxaana weerarada faraha badan ee xulka qaranka Azerbaijan ay qaadayeen u suurta gashay inay gool ka dhaliyaan daqiiqadii 72aad xulka qaranka Croatia. goolkana waxa uu saxay xulka qaranka Azerbaijan ciyaartoyga lagu magacaabo
tamkim kalazeyd ciyaartana ka dhigay 1-1 ay siman yihiin labada xul qaran ee Azerbaijan iyo Croatia gebi ahaan iyo guud ahaan ciyaartu 90 daqiiqo ee loogu talagalay iyo waliba daqiiqadii dheeraadka ah ee lagu daro waxay ku soo gabagabowday 1-1 haystaafi waayeen labada xul qaran ee Azerbaijan iyo Croatia waxaa iyaguna toddobaadkan gudihiisa sidoo kale sirdiyay ciyaar adagna dhaxmartay labada xul qaran ee Ingiriiska iyo Bulgaria waxaana wadankooda lagu ciyaarayay isla marhaantana marti loo ahaa xulka qaranka Ingiriiska ciyaartuna waxay ku bilaabantay weeraro kala duwan oo ay labada xul qaran isku qaadayaan hase yeeshee qaybtii hore ciyaarta waxaa xulka qaranka Ingiriiska oo iyagu markaasi marti loo ahaa uu suurta gashay daqiiqadii 24aad inay gool ka dhaliyaan xulka qaranka Bulgaria waxaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka Ingiriiska ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane ciyaartana ka dhigay 1-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Ingiriiska haddana daqiiqadii 50aad qaybtii hore ciyaartuna waxay ku soo gabagabowday 1-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Ingiriiska markii dib la isku soo laabtay waana qaadasho iyo dardaaran kadib xulka qaranka Ingiriiska waxa mar kale u suurta gashay inay gool labaad ka dhaliyaan xulka qaranka Bulgaria oo markaas iyagu marti u ahaa goolkaasi waxa mar labaad raacsaday isla markaana dhaliyay ciyaartoygii Harry Kane ciyaartana ka dhigay 2-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Ingiriiska haddana ciyaartu markii ay socotay 5 daqiiqo kaliya waxa xulka qaranka Ingiriiska mar saddexaad u suurta gashay inay gool ka dhaliyaan xulka qaranka Bulgaria ee martida ahaa goolkaana waxa dhaliyay ciyaartoyga oo ciyaara kooxda Manchester City ee Raheem Sterling daqiiqadii 55aad waxaana caawintiisa lahaa ciyaartoyga markaasi isagu labadii gool ee hore dhaliyay ee Harry Kane ciyaartuna waxay noqotay 3-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Ingiriiska weerar iyo weerar celin kadib haddana xulka qaranka Ingiriiska waxay sameeyeen fursado loo filan karay goolal waxaana ay qaadeen weeraro halisa weerarada halistiina waxay u suurta galiyeen inay gool afraad ka dhaliyaan xulka qaranka Bulgaria daqiiqadii 73aad waxaana goolkaasi mar saddexaad raacsaday amaba hadri ka dhigtay ciyaartoyga labadii gool hore dhaliyay ee Harry Kane ciyaartuna waxay noqotay 4-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Ingiriiska gebi ahaan iyo guud ahaan 90 daqiiqo loogu talagalay ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 4-1 lagu xasuuqay xulka qaranka Bulgaria oo halkaasi kala huleelay guul darro aad u xanuun badan خطيرة الكرة هذه رحيم وكاين جول من خطأ فادح ارتكبه دفاع منتخب بلغاريا اختفى من هنالك رحيم وحطها لهاري كين يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 24 من عمر هذا الشوط الأول في نهاية المطاف ارتكبوا الخطأ هاري كين راشفورد ما زال راشفورد لا ضربة جزاء راشفورد يستفز دفاع بلغاريا ويستفز المدافع بيدوروف ويتحصل على ضربة جزاء إذا في خطأ في تصفية اليورو هاري كين يتقدم هاري كين حطها في الجول هاري كين يسجل الثاني هاري كين يسجل ثنائية والإنجليز صاروا متفوقين ب2-0 بعد الدقيقة 3 من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة حتى في الزاوية اليسرى جول لهاري كين راشفورد يلعبها خطيرة كين جول هاري كين ورحيم ستيرلينج وجول ثالث أهداف إنجلترا سنصل إلى 5 على الأقل هرب من هنالك من راشفورد من خطأ استرجعه اللاعب هاري كين مررها لراشفورد دخل رجعها لكين ورحيم في المكان المناسب يحطها في الجول هاري كين وضربة جزاء هاري كين وضربة جزاء أخرى يقول حكم المباراة بعد هذه العرقلة من ديميتروف يعني خرجنا بيدوروف أنت عنده يضعها في نفس الزاوية أم سيغير نحن لن نسأل إن كان سيسجل أو يضيع في الزاوية الأخرى وجول
في الزاوية الأخرى هذه المرة، وجول رابع لإنجلترا، الثاني لهاري كين، خامس له في تصفية اليورو، وهدف رقم 25 في مشواره في 40 مباراة مع المنتخب الإنجليزي بالقوة. iyaguna sidoo kale ciyaar ka tirsan isreebka qaaradda Yurub waxay sirdiyay isla maraantana ciyaar adag dhex martay labada xul qaran ee Serbia iyo Portugal. xulka qaranka Portugal oo isagu markaasi marti u ahaa xulka qaranka Serbia isla markaana wadankooda ku ciyaarayay ayaa waxay heleen fursad gool ay ku dhalin karaan wayna ka faa'iideeyeen. daqiiqadii 24aad ee qaybta hore ciyaarta waxaa gool u dhaliyay xulka qaranka Portugal ciyaaryahanka lagu magacaabo William Carvalho, ciyaartana ka dhigay 1-0 ay ku gacan sarayaan xulka qaranka Portugal. hase yeeshee qaybta hore ciyaartu waxay ku dhamaatay 1-0 ay markaasi iyagu wataan xulka qaranka Portugal. markii dib loo isku soo noqday waana qadasho iyo talooyin kadib labada xul qaran ee Serbia iyo Portugal ayaa halkii ka sii waday weeraradoodii iyo weerar celiskooda kala duwanaa. haddana xulka qaranka Portugal waxa uu suurta gashay inay gool labaad ka dhaliyaan xulka qaranka Serbia oo ay markaasi marti u ahaayeen daqiiqadii 58aad, waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Gonçalo Guedes, waxaana caawinta lahaa Bernardo Fardes. ciyaartuna waxay noqotay 2-0 ay ku gacan sareeyaan xulka qaranka Portugal. balse xulka qaranka Serbia oo markaasi iyagu gurigooda lagu ciyaarayay way iscanaanteen, waxaana ay qaadeen weeraro halis ah oo markaasi ay ku qaadayeen xulka qaranka Portugal oo laba ku watay, waxaana weeraradaasi halista u suurta galiyeen xulka qaranka Serbia inay daqiiqadii 68aad gool ka dhaliyaan xulka qaranka Portugiiska. goolkana waxa uu dhaliyay xulka qaranka Serbia ciyaartoyga lagu magacaabo Nicolo Milenkovic, ciyaartana ka dhigay 1-2. xulka qaranka Portugal ayaa iyaguna bilaabay weeraro ay iskaga soo badayaan goolkaas isla maraantana ay ku cadho furfurayaan. daqiiqadii 80aad waxaa u suurta gashay xulka qaranka Portugal ee markaasi iyagu martida ahaa inay ciyaarta 3-1 ka dhigaan, waxaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka Portugal ciyaartoyga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo, waxaana caawinta iska lahaa saaxiibkiis Bernardo Silva. ciyaartuna sidaas waxay ku noqotay 3-1 ay ku gacan sareeyaan xulkii martida ahaa ee Portugal. balse xulka qaranka Serbia ayaa mar kale weerar halis soo qaaday, weerarkaasina waxa uu sabab u noqday inay gool dhaliyaan, waxaana daqiiqadii 85aad xulka qaranka Serbia goolkaasi u dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Alcácer. ciyaartuna waxay noqotay 2-3. balse xulka qaranka Portugal ayaa weerar degdeg ah markiiba ku qaaday xulka qaranka Serbia oo ay marti u ahaayeen, waxaana gool afraad u dhaliyay xulka qaranka Portugal ciyaartoyga Bernardo Silva, ciyaartana ka dhigay 4-2 ay ku gacan sareeyaan xulka qaranka Portugal, waxaana caawinta iska lahaa goolkaasi ciyaaryahanka lagu magacaabo Rafael Guerreiro. ciyaartuna gebi ahaan iyo guud ahaanba intii loogu talagalay waxay ku soo gabagabowday 4-2 ay ku badiyeen xulka qaranka Portugal. فكر إلا بالعودة بالنقاط الثلاثة، وهذه الكرة والهدف 1-0 1-0 1-0 1-0. البرتغال تسجل، البرتغال تسجل من ويليام كارفاليو. الحكم يقر بصحة الهدف وخطأ قاتل من ديمتروفيتش. الكرة سقطت داخل منطقة الستة وأصبحت حائرة، وويليام كارفاليو يضع اللمسة الصحيحة في شباك هذا الحارس الذي ظهر مهزوزا. هذا هدف بالفعل يلام عليه الحارس والدفاع. هاي برونو فرنانديز اختراق وجيدش يسدد، والهدف الثاني، الهدف الثاني كونزالو جيدش اطلقها في البعيدة لا تصد ولا ترد. هذا هدف رائع، هذا هدف رائع وملعوب من جملة تمريرات برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، وايضا برونو فرنانديز. هاي برناردو، كريستيانو، ماتيتش يحاول ان ينتزع شيئا، لاعب الوسط المتقدم، والكرة العالية والرأسية، وهدف وهدف وهدف. روعة الهدف، روعة الهدف، روعة. صربيا تعود وميلينكوفيتش يعوض خطأ الهدف الأول. نيكولا ميلينكوفيتش بالفعل كرة رأسية ولا أحلى في شباك باتريتسيو. المنتخب الصربي يعود من بعيد ويجدد آماله. شوف ميلينكوفيتش من أين أتى في زعامة هذه المجموعة. وهذا كريستيانو،
أخيرا 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 رونالدو الفنان يمضي بكل عنفوان ويهز الشباك الصربية، لم يفعل ذلك من قبل. ها هو يحقق الهدف الأول له في مسيرته بمرمى المنتخب الصربي، الهدف الدولي طبعا بقميص بلاده. ها هو ليس متسلل، ليس يايتش، نشيط حلوة داخل منطقة الجزاء، ممكن وهدف. الله ما أجمل هذا الهدف، الله يا متروفيتش ما أجمل هذا الهدف، روعة روعة روعة. 3-2. إلى أين تتجه هذه المباراة؟ لا يتصنعها متروفيتش، أنهاها بقوة في شباك باتريتسيو. صربيا هدفان، البرتغال 3. لا 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 لا، أنا اللي قلته في الشوط الأول مباراة شكلها فيها هدف، ولكن يبدو أن ذلك كان خاطئا بالفعل لأن المباراة اختلفت في الشوط الثاني. هذه كرة في الرابع 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 الرابع. ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا؟ برناردو سيلفا. يا فرحة صربية ما تمت. عملوها 2-1، عملوها 3-2، ولكن البرتغال مرة أخرى ترد. جواو فيليكس يصنعها وبرناردو سيلفا طبعا يضعها أرضية في غياب. iyaguna waxaa fooda istiray oo ciyaar xiiso iyo xamaasad gaara xambaarsanay ay dhex martay labada xul qaran ee xafiiltanka weyn ka dhaxeeya ee Germany iyo Netherlands, waxaana gurigooda amaba wadankooda lagu ciyaarayay isla marhaantana marti loo ahaa xulka qaranka Germany. ciyaartuna waxay ku bilaabantay weeraro kala duwan oo ay labada xul qaran ee Jarmalka iyo Netherlands ku qaadayaan, hase yeeshee xulka qaranka Jarmalka oo markaasi isagu gurigooda lagu ciyaarayay waxa uu suurta gashay qaybta hore ciyaarta daqiiqadii 9aad inay gool ka dhaliyaan xulka qaranka Netherlands oo markaasi iyagu marti u ahaa. goolkana waxa uu dhaliyay xulka qaranka Jarmalka ciyaartoyga lagu magacaabo Serge Gnabry, ciyaartana ka dhigay 1-0, waxaana goolkaasi caawintiisa lahaa ciyaartoyga lagu magacaabo Lucas. ciyaartuna waxay noqotay 1-0. qaybtii hore ciyaartana gabi ahaanba waxa lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Jarmalka. markii dib la isku soo laabtay tardaaran iyo waana qaadasho kadib, xulka qaranka Netherlands waxay sameeyeen weeraro halis ah oo ay ku qaadayeen xulka qaranka Jarmalka. Netherlands oo markaas isagu gool lagu lahaa waxa uu suurta gashay inay daqiiqadii 9aad gool ka dhaliyaan xulka qaranka Jarmalka, ciyaartana ka dhigaan barbaro, waxaana goolkaas uu dhaliyay xulka qaranka Netherlands ciyaartoyga daada yar ee lagu magacaabo Frank de Jong, waxaana caawinta goolkaasi iska lahaa ciyaartoyga lagu magacaabo Ryan Babel. ciyaartuna waxay noqotay 1-1 ay sameeyeen labada xul qaran ee Jarmalka iyo Netherlands. haddana xulka qaranka Netherlands oo markaas iyagu marti ahaa way sii biirsadeen goolasha. daqiiqadii 66aad waxa gool kale u dhaliyay ama goolka labaad u dhaliyay xulka qaranka Netherlands ciyaartoyga lagu magacaabo Jonathan Tah. ciyaartuna waxay noqotay 2-1 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Holland ama Netherlands, balse xulka qaranka Jarmalka ayaa iscanaantay, waxaana qaaday weeraro halis ah oo uu ku doonayo inuu goolashaasi iskaga soo bado amaba ku badiyo. daqiiqadii 73aad xulka qaranka Jarmalka waxa gool barbara u keenay ciyaartoyga lambar 8 oo xidha xulka qaranka Jarmalka ee lagu magacaabo Toni Kroos. ciyaartuna waxay noqotay 2-2 ay sameeyeen labada xul qaran ee Netherlands iyo Jarmalka, balse xulka qaranka Netherlands ayaa isaguna sameeyay weeraro halis ah, waxaana ay gool ka dhaliyeen daqiiqadii 79aad xulka qaranka Jarmalka. goolkana waxa uu dhaliyay xulka qaranka Netherlands ciyaartoyga lagu magacaabo Daniel Malen, ciyaartana ka dhigay 3-2 ay ku gacan sareeyaan xulka qaranka martida ahaa ee Netherlands. 90 daqiiqo markii ay ciyaartu mareysay amaba ay gabagabo ahayd waxa gool afraad u dhaliyay xulka qaranka Netherlands ciyaartoyga lagu magacaabo Georgino Wijnaldum ee u ciyaara kooxda Liverpool, waxaana uu goolkaasi niyad-jab iyo murugo ku noqotay xulka qaranka Jarmalka. ciyaartuna gabi ahaanba waxay ku soo gabagabowday 4-2 guridooda loogu awood sheegtay xulka qaranka Jarmalka, waxaana reeyay xulka qaranka Netherlands. حالة المجموعات بعد ما كانت خرجت عن 38 امام سويسرا. هذه فرصة الالمان، ممكن يسجل كلوسترمان وسيلسن. هدف الماني، هدف الماني، هدف الماني ياتي عن طريق اللاعب جنابري امامنا هنا، نجم المتألق مع بايرن ميونخ اللي بيستغل الكرة المرتدة، والمانيا في اول
محاولة على المرمى، تسديدة لوكاس كلاسترمان اللي طبعا يتصدى ليها الحارس سيلسن المنتقل من بارسا إلى فالنسيا، والفولو والمتابعة من جنابري اللي سجل 8 أهداف في 9 لقاءات دولية. بص التمريرة، شوف التحرك وعلى طول الكرة في ظهر اللاعب اللي كان هنا في هذه اللقطة برومز. أمامنا رايان بابل، الكرات العرضية، المنتخب الهولندي بدأ يكمل التعادل هنا عن طريق فرانكي دي يونغ، أول وأغلى الأهداف الدولية لنجم البارسا القادم من أياكس هولندا. أبدا المهارات والمواهب لا تنضب أبدا ولا تنتهي، لأن فرانكي دي يونغ هنا يسجل التعادل للمنتخب الهولندي. أدي بابل، وادي أمامنا هنا الخطأ في اللقطة الماضية من جانب تشولز ومن جانب تاه، ثم يأتي الدوري الأمم الأوروبية 2019 تصنيف إيه؟ ركنية للمنتخب الهولندي، أدي رأسية وفان دايك والفولو، والهدف الهولندي هنا يأتي عن طريق أمامنا ممفيس يسجل أمامنا هنا وسط هذه الأخطاء. أي أخطاء، أي يعني دفاع الألماني، إنقاذ رائع في اللقطة الماضية. أعتقد جوناثان تاه هو اللي وضع الكرة في مرماه، هدف بنيران صديقة في الدقيقة 65 عن طريق مدافع ليفركوزن في 7 لقاءاته. بص رأسية فان دايك والإنقاذ من نوير في هذه الكرة، والكرة ترتد وتتلعب من ممفيس بالعرض وترتطم في الماضية، وعمل عرضية خطرة جدا. وادي أمامنا دي ليخت والكرة ولمسة اليد وقلة الخبرة وضربة جزاء أمامنا هنا. كرة يعني نقول عليها بلغة كرة منتهية. بص شولز عدى ازاي، وشوف بقى هنا يتردد الارتور ديش البرتغالي. وادي امامنا توني كروس، التعادل للألمان. الإصرار والعزيمة، ولكن التوفيق كان مع اللاعب جولز لما ارتطمت كورته في ايد اللاعب دي ليخت. لكن الألمان ما بيهزروش، ما بيضيعوش، وتوني كروس يسجل التعادل. شوف الكرة من جد، هولندا طمعانة في الفوز، وادي فرصة التسجيل هنا عن طريق اللاعب ميلن، ضيع منذ لحظات، لكن يسجل ميلن هدف في الدقيقة 79. رونالد كومان راهن على المواهب الشابة في هذا الشوط الثاني. الطواحين الهولندية تطيح بالدفاعات الألمانية الثغرات في الشوط الثاني، وصناعة الكرات الذي يقدم الأداء الرائع في الشوط الثاني، والكرة العرضية والهدف. فينالدوم القاتلة. أي سقوط أمامنا، سقط سور برلين في عام 90، وهنا السقوط في هذه اللقطات لمنتخب ألمانيا، وهدف عن طريق فينالدوم كأنه متخصص في التسجيل في ألمانيا. iyaguna waxaa fooda istiray toddobaadkan gudihiisa labada xulqaran ee France iyo Albania, waxaana wadankooda lagu booqday isla marhaantana marti loo ahaa xulka qaranka Faransiiska. ciyaartuna waxay ku bilaabantay weeraro iyo weerar celis kala duwan. labada xulqaran ee Faransiiska iyo Albania ayaa sameeyay fursado markaasi loo malin karay goolal. xulka qaranka France waxa uu suurta gashay daqiiqadii 8aad inay gool ku daafuraan ciyaarta, waxaana goolkaasi u dhaliyay Faransiiska ciyaartoyga lagu magacaabo Kingsley Coman. ciyaartana ka dhigay 1-0 ay ku gacan sarayaan xulka qaranka France oo iyagu markaasi ciyaartani marti gelinayay, waxaana goolkaasi ka caawiyay saaxiibkiis Rafael Varane. haddana daqiiqadii 27aad ee qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka Faransiiska waxaa mar labaad u suurta gashay inay gool ka dhaliyaan xulka qaranka Albania, waxaana goolkaasi u saxeexay amaba u dhaliyay ciyaartoyga Olivier Giroud. ciyaartana ka dhigay 2-0, waxaana caawinta lahaa ciyaartoyga lagu magacaabo Lucas Hernandez. qaybtii hore ciyaartuna waxay gebi ahaanba kusoo gabagabowday 2-0 ay wataan xulka qaranka Faransiiska. markii dib la isku soo laabtay, labada xulqaran ayaa sameeyay weeraro kala duwan oo markaasi ay midda kale kaga doonayso inay gool ka dhaliso. qaybtii dambe ciyaarta daqiiqadii 68aad xulka qaranka Faransiiska waxaa gool saddexaad u dhaliyay ciyaartoygii markii hore goolka ku daafuray ee lagu magacaabo Coman. ciyaartana ka dhigay 3-0, waxaana goolkaasi caawintiisa lahaa ciyaartoyga Antonio Griezmann. daqiiqadii 85aad ee dhamaadka ciyaarta labada xulqaran
ee Albania iyo Faransiiska waxaa gool afraad ka dhaliyay una dhaliyay xulka qaranka Faransiiska ciyaartoyga lagu magacaabo Icon ciyaartana ka dhigay 4-0 balse daqiiqadii 9aad oo ahayd gabagabada ciyaarta waxaa goolka madiga ah u dhaliyay xulka qaranka Albania ciyaartoyga lagu magacaabo Sokol ciyaartana ka dhigay 1-4 gabi ahaan iyo guud ahaanna ciyaartu waxay ku soo dhamaatay ama ku soo gabagabooday 4-1 dhabarka loo saaray xulka qaranka Albania oo isagu marti u ahaa xulka qaranka Faransiiska. روسيا في مارس 2016 انطلاقه كومان ممكن يسجل الهدف الوحيد مع هدفين لكن تمريره ايه من فران يا ولد على الاسيست والتمرير. وهنا المنتخب الفرنسي المنتخب اللي بيسجل عن طريق نجم بايرن ميونخ امامنا هو اللاعب كومان يسجل لمنتخب فرنسا بعد تمريره روعه 8 دقائق. لم يصمد المنتخب الألباني لم يشفع لريا الفرنسي يعني في نوع من البطء. الأخطاء الدفاعية كارثية. لوكاس هرنانديز المرة دي ما تضيعش أمامنا أخطاء كارثية في التغطية الدفاعية في اللقطة الماضية. وهدف هنا لأوليفيه جيرو يسجله في هذه الكرة وهذه اللقطة وبهذه الكيفية. ثالث الأهداف لي في مشوار هذه التصفيات. سجل في مولدوفا وسجل في مرمى أيسلندا ويسجل أمامنا في الدقيقة 67 دقيقة ومحاولات الوصول وكومان أمامنا هنا. كومان في صناعة جميلة جدا من جانب النجم المميز جريزمان والتفويتة بتاعت لوكاس هرنانديز ويسجل كومان الهدف الثاني ليه في هذه الليلة وهدف منتخب فرنسا الثالث في اللقاء في الدقيقة 68. ادي امامنا لوكاس هرنانديز تعرض لالتحام ومخاشنه في اللقطه الماضيه لكن هي باديه حلوه. شوف لوكاس هرنانديز شوف التحرك امامنا. ادي جريزمان شوف لوكاس هرنانديز كمل فين وجيرو تناغم في الاداء والعرضيه اللي بيمرر لمسه حلوه قوي يا ولد على نبيل فقير. عمل تمريره الايكون امامنا هو. لسه بنحكي على اللعيبه اللي بتسجل مع المنتخب لاول مره. النهارده بيسجل برضه ايكون لكن في اول ظهور وفي اول مباراه. تحرك من جانب منتخب البانيا تمريره ممكن هدف وممكن ركله جزاء. هنا لانجلي والتغطيه الدفاعيه والنقاط ركله الجزاء والفرصه للتسجيل هنا. يسجل امامنا صاحب الاهداف الثلاثه السابقه. labada xul qaran ee Isbaanishka iyo Faransiiska Iceland ayaa iyaguna toddobaadkan gudihiisa foodaystaray ciyaar aad u xamaasad badan dhaxmartay waxaana wadankooda lagu booqday isla markaana garoonkooda lagu ciyaarayay xulka qaranka Spain. ciyaartuna waxay ku bilaabantay weerar celis kala duwan. xulka qaranka Spain daqiiqadii 13aad waxaa gool ugu daafuray ciyaarta isla markaana 1-0 ka dhigay ciyaartoyga lagu magacaabo Rodrigo waxaana goolkaasi caawintiisa lahaa ciyaartoyga lagu magacaabo Mikael. ciyaartana waxay sidaasi ku noqotay 1-0 ay ku gacan sareeyaan martigeliyaasha ciyaarta ee Isbaanishka. ciyaartuna qaybtii hore waxay ku soo gabagabowday 1-0 ay ku hogaaminayso xulka qaranka Isbaanishka oo markaasi iyaga marti loo ahaa. markii dib la isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta waana qaadasho iyo dardaaran kadib xulka qaranka Isbaanishku waxa halkii ka sii waday weerarada kala duwan ama weerarada halista ay ku qaadayo xulka qaranka Iceland oo markaasi iyagu marti u ahaa. waxaana weeraradaasi u suurtageliyeen mar kale xulka qaranka Isbaanishka inay daqiiqadii 50aad gool labaad ka dhaliyaan xulka qaranka Faransiiska Iceland. ciyaartuna sidaasi waxay ku noqotay 2-0. goolkana waxa uu saxay mar kale ciyaartoyga lagu magacaabo Rodrigo 90 daqiiqo marka ay ciyaartu tahay. waxaa gool saddexaad u dhaliyay xulka qaranka Isbaanishka ciyaartoyga Paco Alcácer. ciyaartana ka dhigay 3-0 ay ku gacan sareeyaan xulka qaranka Isbaanishka oo markaasi iyagu martigeliyaal ka ahaa maashkani u dhaxeeyay xulka qaramada Isbaanishka iyo Iceland. waxaana caawinta goolkaasi lahaa ciyaartoyga Diego Alcácer. waxaadana mar kale gool u dhaliyay xulka qaranka Spain. ciyaartana 4-0 ka dhigay ciyaartoyga markii hore goolka dhaliyay ee Paco Alcácer. ciyaartuna waxay noqotay 4-0 ay ku gacan sareyso xulka qaranka Isbaanishka. ciyaartana gabi ahaan guud ahaanba 90 daqiiqo iyo
daqiiqadihii lagu darayba waxay ku soo gabagabooday 4-0 ay ku badisay xulka qaranka Isbaanishka. هي مباراة في المتناول لدينا فرصة خطوة قائمة وهدف أول يأتي نعم الهدف الأول يأتي نعم في وقت الحديث عن الخطورة وفي رغبة كبيرة وفي ظل الحديث عن هذه الرغبة وهذه القوة الهجومية الأسبانية كان الهدف الأول من رودريغو يسجل أول أهداف هذا اللقاء هدف أول لمنتخب أسبانيا المنتخب الذي لم يتأخر في إحراز الهدف قليل من أهداف منتخب أسبانيا في هذا اللقاء لدينا فرصة أسبانية هذا جول رودريغو من جديد وكلما حان وقت الحديث عن الأهداف يظهر رودريغو يسجل ويسجل منتخب اسبانيا الهدف الثاني عن طريق رودريغو ثاني الاهداف بتزيد الصدمة في المدافع واستقرت في الشباك 7 أهداف رودريغو هنا منتخب مالطا هنا محاولة اسبانية عرضية تأتي والهدف الثالث ثالث الاهداف واهداف رودريغو اما باكو الكثير نعم باكو الكثير هو من يسجل باكو الكثير أهدافه في الزيادة حديث عن ديفيد فيا أمام منتخب تاهيتي هنا التصويبة باكو الكثير وكرة كايا في الشباك بعد عرضية مثالية إلى باكو الكثير daawada intaas haddaynu ka nimaadno kulamadaasi ka tirsanaa koobka qualification ee Yurub imkii aatana waxaad ku soo dhawaataan sheekooyin iyo falanqeyno ku saabsan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub iyo waliba ciyaartooygooda sida wararku ay sheegayaan Olivier Giroud ayaa la filayaa inuu ka dhaqaaqo dhamaadka xilli ciyaareedkan kooxda Chelsea isagoo ku sii jeeda horyaalka MLS-ka wadanka Mareykanka shabakada ciyaaraha ee RMS Sport ayaa warinaysa inuu Olivier Giroud haysto dooqo kala duwan marka uu dhamaado qadaraaskiisa kooxda Blues amaba Chelsea dhamaadka kal ciyaareedkan oo ay ku jirto inuu aado dhinaca horyaalka wadanka Mareykanka weeraryahanka reer Faransa ayaa xagaagii la soo dhaafay loo gacan galiyay heshiis kordhin hal sano laakiin waxaa loo ogolaan karaa inuu beeca xorta kaga tago kooxda Chelsea 2020ka isagoo jira da'da 32 sano jir weeraryahanka waxa uu furan loolan cusub waxaana loo maleynayaa inuu xiiso u qabo inuu aado horyaalka dalka Mareykanka ee Major League Soccer tababaraha kooxda Juventus ee Mario Sarri ayaa eeganaya inuu helo qaabka ugu wanaagsan ee gool dhalinta xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkani sida uu toddobaadkani qoray wargeyska Cario de Sporti ee dalka Talyaaniga Mario Sarri ayaa rajeynaya inuu ka caawiyo Cristiano Ronaldo inuu gaadho heerkiisa ugu sareeya ee kooxda Juventus wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in macalinka cusub ee kooxda Juventus uu u ballan qaaday kabtanka Portugal ee Cristiano Ronaldo oo 34 jir ah inuu dhalin doono goolal ka badan kuwii uu dhalin jiray xilli ciyaareedkii hore ee kooxda Juventus wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in Sarri uu helo wada uu kaga yareyn karo culayska Cristiano Ronaldo laga bilaabo xilligan la joogo ilaa iyo ciid gaaleedka Christmaska maadaama oo ay macquul tahay in Cristiano Ronaldo uu ka qayb galo ku dhawaad 30 kulan oo isugu jira xulkiisa qaranka Portugal iyo kooxdiisa Juventus wargeyska Sport ee dalka Isbaanishka ayaa daabacay hadallo ka yimid halyeeyigii reer Argentina ee Diego Maradona kadib markii uu ka hadlay xidiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Lionel Messi Diego Maradona oo dib ugu soo laabtay shaqada tababarka kooxda Chimeso Echema ee dalka Argentina ayaa waxa uu talan qaali ah siiyay Lionel Messi sanadkii 2010 wargeyska Mirror ee dalka Ingiriiska oo xiganaya dhigiisa Sportiga ee dalka Isbaanishka ayaa waxa uu yiri sanadkii 2010 waxaan tababaray ciyaaryahanka ugu fiican adduunka waana Lionel Messi qofna si kale uma dhihi karo wuxuu awood u lahaa inuu ugu gambiyo 5 ciyaartoy hal taako Messi wuxuu xilligaasi dhibaato ku qabay laadadka xorta uu yimid wuxuuna i weydiiyay sida loo toogto tababar kasta kadib waxaan caado ka dhiganay
inaan si gooni ah tababar u samayno. Wuxuu igu yimid inuu wax iga weydiiyo arrintan, waxaanan u sheegay inuu ka toogto dhexbartanka. Waxaan u sheegay inaanu ka walwalin isla markaana uuna mar kale ku celiyo. Haddase ma qaldayo, wuxuuna ku cadaabayaa goolashaasi. Goolhaye David De Gea ayaa lagu soo waramayaa inuu sheegay saaxiibadiisa inuu qorsheynayo inuu iska diido heshiis kordhinta cusub oo ay u soo bandhigtay Manchester United, iyadoo miiska u saartay mushaar dhan 35,000 oo gini isbuucii, isagoo raba inuu kooxda beeca xorta ah uga tago sanadka soo socda. Xidiga reer Spain ayaa u soo dhaqaaqay garoonka Old Trafford sanadkii 2011, isagoo naftiisa ka dhigay mid ka mid ah hantida ugu qaalisan ee kooxda tan iyo markii uu shaqada ka tagay tababare Sir Alex Ferguson sanadkii 2013. De Gea ayaa wada hadallo kula jiray Man United heshiis ka badan 1 sano, waxaana uu si xor ah ugu noqon doonaa xagaaga soo socda haddii ay ku guuldareysato inay heshiis cusub la saxeexato. Sida uu warinayo wargeyska The Sun, goolhayahan ayaa qorsheynaya inuu qandaraaskiisa hoos u dhigo oo uu wada hadallo la bilaabo kooxo kale bisha Janaayo. Soo bandhigista mushaarka haatan ee ah 35,000 ee gini isbuucii ayaa Diego De Gea ka dhigaya goolhayaha ugu mushaarka badan adduunka, laakiin tani kuma filaan karto isaga. 28 sano jirkan ayaa la sheegayaa inuu shaki gelinayo ku guuleysiga koobabka waaweyn ee kooxda Manchester United sanadaha yar ee soo socda. Halyeeyga xulka qaranka Holland ee Frank de Boer ayaa sheegay inay la yaab ku noqotay booska uu haatan Frank de Jong kaga ciyaaro kooxda Barcelona. Dhinaca kale, Frank de Boer ayaa tilmaamay inuusan ka warqabin waxa uu macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ka doonayo laacibka reer Holland ee Frank de Jong ee kaga soo biiray kooxda Barcelona kooxda Amsterdam. 22 jirka reer Holland ayaa suuqii dhawaa ee xagaaga ku yimid kooxda Barcelona qiimo lacageed oo lagu qiyaasay ilaa iyo 75 milyan oo euro kadib markii uu ka soo dhaqaaqay naadiga Ajax ka dhisan caasimadda wadanka Netherlands. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa lagu dhaleeceeyay booska uu ka ciyaarsiinayo xidiga reer Holland ee Frank de Jong. Xitaa ciyaaryahanka ayaa ka hadlay arrintaasi. Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, Frank de Boer waxaan arkay kulankii ugu dambeeyay ee ay ciyaartay kooxda Barcelona. Frank de Jong ma uusan ka ciyaarin booskiisa, waa inuu dhex ka ciyaaraa ama kubad sameeye ahaanu ciyaaraa. Ma aqaano waxa Ernesto Valverde ka doonayo Frank de Jong ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. Waa hagaag daawadayaal, iminkana waxaanu soo gaarnay waqtigii ay idinla socodsiin jiray xubinteena dhextaalka ahayd aynu ugu magac daray xirfadda ciyaartoyga oo aynu toddobaadkiiba hal muuqaal ka daawano xirfadda mid ka mid ah ciyaartoyga ciyaaro kubadda cagta gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub. Daawadayaal, toddobaadkana waxaanu daawan doonaa ciyaartoyga lagu magacaabo Dembele ee markaasi u ciyaara kooxda Barcelona. Daawasho wanaagsan. She say that she a wanderlust, but she ain't seen the world so much to do at 21. You feel invincible, so hard to find someone to trust. She's still a daddy's girl, she wanna be an actress and a singer like Selena. And she a movie buff, but she ain't seen Breakfast at Tiffany's or Breakfast Club. That's just before her time, so hard to keep a conversation when your mind's on vacation. You got pretty green eyes, I can see them dollar signs, girl. Oh yeah, I heard that you addicted to them sands now, girl. Go ahead with your slippy ass. Go ahead. Shawty, give me a reason. You know that I'm leaving. Give me a reason. You know that I'm leaving. I know how to please you, and I stay in the freezer. It's all that you need, so baby,
Twitter page, on YouTube she's a makeup artist. Hollywood apartment, she's a bartender and a part-time model. All her friends are verified, wow, man that's so cool, wow. Girl, can we hang out? Let's take 1,000 pictures like the hype beast now. People saying that we're goals, that's all I ever wanted. Fuck the haters, fuck the trolls. Oh yeah, I heard that you were wanderlust, girl, where'd you go? Go ahead with your traveling ass, go ahead around the world now. Give me a reason, you know that I'm leaving. Give me one reason, you know that I'm leaving, baby. I know how to please you, Hennessy in the freezer. It's all that you need, so baby, وهاك داود القضب كاسنا وحا وكون يقبقبا وها برامج كان عيارها اي ريا تي في برامج كان واحد ناس عسين اسلام رهانتان idiin soo diyaariyay anigoo ah Abubakar Farxaan Cabdi Abubakar Abka intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo fi amaanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh صعب بدنها لوطمو صعب بدنها لوطمو
sacab sacab badan haloo tumo